ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay soo gabagabeeyaan howlgalkii ay ka sameeyeen gudaha hoteelka Naasa Hablood ee ku yaala degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho kaasoo maalintii shalay gelikii dambe ee weerar ku soo qaadeen rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana dhimashada dadka lagu qiyaasay ku dhawaad 20 qof iyo tiro intaa ka badan uu dhaawac ka soo gaaray dadka ku dhintay weerarka waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Maduuba Nuuno xildhibaan gaarane oo ka tirsanaa dowladdii hore ee Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska degmada Daynile ee gobolka Banaadir dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidanka dowladda ay gacanta ku dhigeen rag ka tirsan kuwii weerarka soo qaaday afayeenka laamaha amniga ee dowladda ayaa la hadlay TV-ga Universal wali waxa socota jawaabtii ay ka bixinayeen ama ka bixinaysay dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir sidii musiibada iyada ah ee dhacday oo aan soo afjarnay 3 habeenimo xalay dagaal dheer kadib oo aan la galnay kooxahaas iyaga ah ee duulaanka soo qaaday oo tiradoodu ay ahayd 5 xubnood 3 kamid ahna ay suurtagal noqotay in ay gacanta ku dhigaan ciidamada howlgallada wadajirka ah wada ee magaalada Muqdisho halka 2 kalena oo kamid ahaa kooxahaas iyaga ah ee nabadiidka ah ee xalaaleystay dhiigga shacbiga Soomaaliyeed ay ku dileen halkan waa iridda hore ee hoteelka Naasa Hablood ee ku yaala degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe weerar ku soo qaadeen rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaa weli ka muuqanaya iridda hore ee hoteelka meedadka rag weerarka soo qaaday mid kamid ah oo ku libisan dariiska ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada loo yaqaan xasilinta waa ciidamada hub aruurinta ee ka shaqeeya waqtigan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha waaxda nadaafadda ee maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ka warbixiyay nolosha saakay halkan ee ka socota dhanka hagaajinta iyo goobihii burburka soo gaaray laamiga oo waqtigan noqonaya sidii hore kadib qarxi ka dhacay hoteelka Naasa Hablood ee ku yaala magaalada Muqdisho xaaladda guud ahaan markii laga reebo darbiyada hadda jajaban oo la arkayo maahine xaaladii aan saakay markaan bilaabayna shaqada ay ahayd dabcan dhaawacya yiiljidka meedadna way yiileen hadda waxaad u malaysaa bilicda inay soo noqotay laamiga quruxdiisa inuu soo baxay inaan gurmad xoog leh oo nadaafadda aan gelin halkan waxaan keennay cagafyo noocyo kala duwan ah haddii ahaan lahayd GPS-yada hadday ahaan lahaayeen haddii ahaan lahayd bogleynta bahasha la yiraahdo gacanta leh ee meedadka iyo meelaha jajab wax looga baaro haddii ahaan lahayd cagafyada caadiga ay wax raraan iyo dhowr iyo 10 baabuur oo iska rogayaal ah shaqaalaha oo waaxda nadaafadda dowladda hoose oo dhan way wada yimideen ayagana dhammaan guud ahaan waxaan rabnaa arrintaas oo dhan oo mahad celinteeda shaqaalaha dowladda hoose ay leeyihiin inaan maaragtay qaybta aad adinka ka leedihiin idinka mahad celino dadkana maaragtay la tuso magaalada aan laga niyad jabin hawsha ugu badan saaka meesha nooga suurto gashay waxaa kamid ah inaan burburka hoostiisa ka soo saarnay meedad ilaa 5 iyo 6 qof gaaraya insha Allah taala ayagana waaxda qaabishan dowladda hoose duugitaanka ay la wareegtay meedadkaasi haddana aan rajaynayo inay jiraan cisbitaal Madiina insha Allah kadibna hawsha inta dhiman insha Allah la dhameystiri doono Zakariya Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho